dowladda ma raadin aniga. Mhm, Dowladda ma raadin mhm. anigana ima soo raadin marka laakiin wax badan aan joogaa. Waa gartay. Marka xanuunkan muddo ku hayaa. Waa muddo qof madaxa lama kulmin, Mhm, maan arkin. mhm, Ayagana mhm. kolle isma arkin oo ayagana ima arkin anigana ma arkin. waxa uu ahaa madaalaha hobalada waaberi waqti hadda laga joogo 45 sano ka hor laakiin nasiib darro hadda waxa uu ku xanuunsanayaa Muqdisho. dumar kale macashaqin hadalda makuma nuraan doqaagu wuxuu rabo balandeenba ku galo weligiiday kuma nuraan waa sidee xaaladda caafimaad Cumar Shooli halkee laga hayaa sidee soo xanuunsanayaa goormee ayay ahayd waqtigii ugu horeysay oo soo gaaray magaalada Muqdisho fanaankan ilaa hadda se maxaa laga ogyahay xaaladiisa miyay ka warhaysaa dowladda federaalka Soomaaliya maadaama fanaankan uu ka mid ah fanaaniinta qaran ee wadanka u soo halgamay gaar ahaan se hobalada waaberi ku jiray bariisamaadkii saaxiibadiisa xubnaha ka har hobalada waaberi ee Muqdisho ku sugan miyay ka warhayaan xaaladda Cumar Shooli Cumar xanuun ceenkee ah ayuu hadda la xanuunsanayaa ma dhabaase in xaaladiisu ay tahay mid aad u halisa una u baahan yahay gargaar caafimaad oo dibadda ah maxay ka yiraahdeen qoyskiisa oo ku nool magaalada Muqdisho xaaladda aabahood waxaan maanta wax badan aan ka eegi doonaa waqtigeena ugu badan aan sii doonaa fanaankii hobalada waaberi Cumar Shooli kaasoo muddo ku dhow bil ku xanuunsanaya Muqdisho aysan jirin xaaladiisa cid ka warhaysa wuxuuna ka mid ahaa fanaaniintii ugu waaweynaa ee fanka Soomaaliya magaca ka sameeyay laakiin burburkii kadib ku noolaa dalka dibadiisa ugu dambeysay dalka ku soo laabtay intaanan gudagelin daawade muuqaalkan aan ku higi doono xaaladda caafimaad ee fanaanka weyn Cumar Shooli oo xaaladiisu ay tahay mid aad u halisa una baahan yahay gurmad caafimaad sida qoyskiisuba ay noo sheegeen channelkeena YouTube-ka ee hoyga fanka waxaan ku xasuusanayaa halkan waa hoyga fanka waa channelka kaliya ee saaxiib dhowlaha fanaaniinta kuwaasoo ka warhaya xaaladaha kala duwan ee fanaaniinta ee fanka ku jira ha noqdaan fanaaniintii hore ama kuwa fanka ku cusub sidaa darteed daawada ka mid noqo malaayiinta qof ee ku xiran channelada YouTube-ka ee xogta fanka iyo xanta fanka oo laba channel oo bahwadaaga baahinta macluumaadka la xiriira arrimaha fanka iyo madadaalada waana labada channel ee u gaarka arrimaha fanaaniinta oo lagu baahiyo macluumaadkooda saxda ah xaaladaha caafimaad kuwada fanka ku soo biiri kuwada fanka ku guul dareystay iyo fanaaniinta wajahaya fadeexadaha waaweyn oo aanan qarin aan soo bandhigno subscribe gambaleelkaasna taabo wuxuu kaa saaciidayaa in mobilkaaga aad isticmaalayso oo kugu soo dhaco muuqaal walbo halkan aan soo gelino si aad uga mid noqoto daawadayaasheena malaayiinta qof ee ku xiran channelada YouTube-ka ee xogta fanka iyo xanta fanka oo adduunyada meel walba ay joogaan waxaan leenahay maalin wanaagsan waxaan gudageli doonaa hordhaca muuqaalka aad daawateen faahfaahintiisa magaciisa buuxo waxaa la yiraahdaa Cumar Cabdulle Shooli waxa uu ku magac dheeraa madaalaha hobalada waaberi waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu firfircoonaa fanka Soomaaliya aaskii hobalada waaberi waqti hadda laga joogo 45 sano ka hor markaasoo fanka Soomaaliya si dardar leh ku soo bilowday hobalada waaberina xilligaas ayaa la aasaasay waxayna ka mid tahay hobalada waaberi koox hoos tagta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya oo dhaqaalaha iyo mushaarkaba ay ka qaateen wasaaradda warfaafinta oo dowladda federaalka ay bixiso wali kooxdaas waxay ka dhisan tahay magaalada Muqdisho laakiin nasiib darro dadka hadda hoggaanka haya maahan kuwa ka warhaya shakhsiyaadkii soo maray kooxdan ee qaarkood ku dhiban caasimadda waxaa Muqdisho hore ugu xanuunsanaa Ilaahay caafimaad ha siiye Cabdi Tahliil Warsame oo ka mid ah fanaaniintii waaweyn ee dalkan soo maray wali waxa uu la xanuunsan yahay cudur Muqdisho ayuuna joogaa mana jirto cid caafimaad u fidisa ama gargaar dhanka bini'aadanimada hadda taasoo jirta ayaa waxaa Muqdisho ku soo biiray oo si qarsoon aan loo ogeyn
laakiin warbaahinteena xogta fanka ee janaaladena YouTube-ka oo saaxiib dowlaha fanaaniinta xogtani helay baaritaan dheer aan sameynay kadib aan ogaanay muddo ku siman 3 bilood in ka badanba in Muqdisho uu ku xanuunsanayo Cumar Cabdulle Shooli madaalihii hobalada Waabari shakhsigii fanka Soomaaliya si weyn door firfircoon ka qaatay Soomaaliduna aad u taqaano Cumar Cabdulle Shooli ayaa ku maqnaa 25 sano ee ugu dambeysay dalka dibadiisa asagoo ku noolaa halkaasi laakiin waxaa la sheegay in sanadkii ugu dambeeyay uu soo gaaray magaalada Muqdisho 2019 Muqdisho waxaa ku sugnaa qoyskiisa gaar ahaan caruurtiisa iyo waliba xubno kale oo qoyskiisa kamid ah waxaana Muqdisho la sheegay in markuu soo gaaray waxa fanaankiin xaaladiisa iska fiicneed laakiin mar dambe uu xanuunsaday xanuun daran soo wajahayna waxaa la dhigay mid kamid ah isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in fanaanka xaaladiisu ay sii cakirmayso maalinba maalinta ka dambaysa xubnaha qoyskiisa gabdha iyo wiilal uu dhalay fanaanka ayaa janaalkeena u sheegay in muddo ka badan 3 bilood ah uu la xanuunsanayo cudur kaas oo la dhigay isbitaalka aadan cadde ee magaalada Muqdisho Cumar Cabdulle Shooli ayaa la xanuunsanaya cudurka la yiraahdo macaanka ama sonkorta cudurkaas oo dhowrkii sano ugu dambeeyay la xanuunsanayay laakiin waxaa la sheegay in xanuunkiisa ay ka sii dartay markii Muqdisho uu yimid asagoo caafimaad qaba iyo Muqdisho yimid laakiin xanuunka ayaa ku sii xoogeystay taas oo qoyskiisu ay sheegeen in markii dambe ay garwaqsadeen in la geeyo isbitaalka aadan cadde oo isbitaalka ugu firfircoon marka loo eego dhanka macaanka oo dadka daweeya waxaana sidoo kale la sheegay in hadda xaaladiisu ay tahay mid aad u halis ah aysan ka warhayn dowladda federaalka oo fanaankan qayb ka ahaa hobalada Waabari sidoo kale kama warhayaan saaxiibadiisa dhanka fanka ee hadda hobalada Waabari majaraha u haya ama hoggaanka u haya kuwaas oo qudhooda dhexdooda khilaaf ka dhex jira ayaguna laba garab u kala baxay maanta ayaan wax badan ka eegi doonaa xaaladda dhabka ee fanaankan xaaladiisa caafimaad iyo waliba qodhiisa hadduu isku dayay inuu la xiriiro la sameeyo hay'adaha dowladda ay waxa ay yiraahdeen wariye kamid ah TV-ga Somali Cable ayaa ku booqday xarunta isbitaalka ee magaalada Muqdisho wariyahan wuxuuna ka sameeyay warbixintan oo aan hadda aan daawado doono oo ku saabsan xaaladda fanaanka dumar kale macashaqin adalda makuma nuran toqaagu wuxuu rabo balandemba ku galo weligiiday kuma nuran magaciisu waa Cumar Shooli balse dadka waxa ay u garan og yihiin madaalaha howlada Waabari taasi oo sabab u noqotay firfircoonadiisa dhinaca fanka waxa uu qaaday heesaha ay aadka u dhageystaan bulshada Soomaaliyeed balse maanta waa dhibanada ahsoon oo uusan ka warqabin qarankii uu soo shaqeeyay watahay iminka waxaan ku suganahay isbitaal aadan cadde ee magaalada Muqdisho halka lagu baxnaaninaya fanaankii caanka ahaa ee howlada Waabari Cumar Shooli muuqaalkan intuu socdo waxaad ka bogan doontaan xaaladda uu ku sugan yahay fanaanka iyo waliba heerka uu marayo markii aan tagay isbitaalka waxaan raadiyay qolkii uu ku jiray Cumar Shooli aad baan ugu naxay markii aan arkay isagoo aan socon karin isla markaana aysan ka warqabin dowladda Soomaaliya taasi ayaa sababtay in aan warbixintan ka diyaariyo si loo ogaado xanuunka fanaanka Cumar Shooli oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa sheegay inuu muddo ku xanuunsanaa dalka isla markaana uusan arkin mas'uul ka socda dowladda Soomaaliya oo soo booqda waxa uuna intaasi igu daray in qofna la qiimeeyo qofna qiimihiisa hoos loo dhiga taasina ay sababtay ka warqab la'aanta dadka qaranka u soo halgamay wallahi dowladda ma raadin dowladda ma raadin anigana ima soo raadin marka laakiin wax badan aan joogaa waa gartay marka xanuunkan muddo ku haya waa muddo qof madaxa lama kulmin maan arkin ayagana kole isma arkin oo ayagana ima arkin anigana ma arkin laakiin waxa meesha yaalla Soomaalida dhibka u haysto waxa weeyaan qofna waa qaymo weyn ayaa la siiyaa qofna lama siiyo aniga kole
dowlad ugu weynaa madaxweynaha ugu weynyahay iyo brimesterka waliba ninka la brimesterka isku xaafadanahay laakiin caruurteydii aada isu yaqaanin. mid ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka aadan cadde oo ku hadlayay afka maamulka isbitaalka oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa sheegay in loo baahan yahay qadarin gaar ah in la siiyo Cumar Shooli dadka la midka ahba. wuxuu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed ku weyn waxaana loo keenay isbitaalka dhowr jeer uu yimid wuxuu qabaa cudur sooyaal macnaha sokorow cudur u baahan inuu ruuxa la noolaado oo muddo badan oo la dhehaynin cudurkan uu ka reysanayaa hebel waana dadka loo baahan yahay in daryeelka gaar ah la siiyo qadarin gaar la siiyo maxaa yeelay wuxuu sumcad ballaaran ku dhexleeyahay ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale qaar ka mid ah ilmaha uu dhalay fanaanka oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa carabka ku adkeeyay inay madaxda dawladda il naxariis leh ku soo eegaan aabahooda. aabahay waxa ciyaalkiisa ahayn ma garab taagna maanta wadankan aad iyo aad ugu soo halgamay maantana wax dawlad ka socda aan arkayna ma leh aaban jiriis aad u badatay haddana xaaladiisa waxaan ku sugannahay isbitaalka aadan cadde aan ku sugannahay haddana xaaladiisa waxaa laga deeranayaa dhinaca lugaha. waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya oo ugu sareeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish waxaan leeyahay madaalihii howlada bari Cumar Shooli oo soo halgamay oo ku xanuunsan isbitaalka aadan cadde waxaan madaxda ka codsanayaa inay soo kormeeraan maanta ay soo garab istaagaan. Xirso Dhuux Maxamed Weheliye gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed oo wax badan ay isla soo shaqeeyeen Cumar Shooli ayaa ii sheegay in Cumar heesiisa aysan lahayn copyright isla markaana uusan dhaqaale ka soo galin taa beddelkeedana copyright-kooda uu yahay qaranka oo ilaa iyo hadda ay yaalaan heesaha uu qaaday fanaanka. hadda waxaa la ii sheegay inuu jiran yahay waxaan codsanayaa marka oon muxuu ahaa baaq dheer aan ku soo jeedinayaa oon leeyahay kama maarmo dadkiisa iyo dawladdiisa Cumar Shooli kama maarmo dalkiisa dadkiisa iyo dawladdiisaba waxaan codsanayaa marka in aad loo gacan qabto isaga iyo kuwa la midka oo u baahan gacan qabashadaba. fanaaniinta Soomaaliyeed sad ogtihiin ma laha copyright oo muxuu ahaa heesihiisa markii la saaro kale lacag uguma socoto marka copyright-kii fanaaniinta Soomaaliyeed waxay gashadeen qarankay gashadeen waxay yaaleen raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka marka copyright-koodii xisaabtii ay heli lahaayeen dhaqaale ahaan wuxuu dhabarka ka saaran yahay qaranka Soomaaliyeed. Cumar Shooli waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta aadka loo jeclaa isla markaana qaaday heesihii hirgalay 1980 Cumar waxa jira magac u baxay isla markaana ugu baxay shaqo badnaantiisa magacaasi oo ah madaalaha howlada Waaberi. magacaasi ayaa u baxay kadib markii uu 4 goobood oo kala duwan uu habeen qura ka heesay. Allah caafiyo Cumar Shooli. الله ayaan ugu baryanaa in caafimaad buuxa uu siiyo Cumar Cabdulle Shooli hogaamiyihii hobalada Waaberi waxa uu kale ku magac dheeraa madaalaha kooxdaasi. Cumar Cabdulle Shooli wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn ee fanka Soomaalida aad loogu yaqaano wuxuu kale ka mid ahaa shakhsiyaadka magaca iyo sumcadda ka sameeyay fanka Soomaaliya. ugu dambeynsa Muqdisho uu ka xanuunsanaya ma jirto wax gargaar ah sida asaga uu sheegay uu ka helay dawladdu ma jirto xiriir ay la soo sameeyay dawladda federaalka ayaana moodaa markan inay aad u dayacayso dadkii hore ee fanka Soomaaliya door firfircoon ka soo qaatay. kooxda howlada Waaberi wasaaradda warfaafinta ka tirsan ayaa ku dhooda ogeyn xaaladda fanaankan Cumar Cabdulle inkastoo kooxdu hadda badi ay ku jiraan rag dhalinyaro ah kuwaas oo ka shaqeynaya fanka oo aysan ka warhayn dadkii shakhsiyaadka caanka ahaa ee soo maray. hagaaga daawadayaal warbixintan aan ku eegina xaaladda fanaanka Cumar Shooli ayaa halkaas aan ku soo gabagabeynayna waxaan naga xasuusinaa isla muuqaalkiina kale xiga ee toddobaadka dambe aan ku eegi doono wareysi kale aan ku qaadi doono isla fanaankan ku saabsan oo aan xaaladiisa iyo waliba waxa ka soo korortay. sidoo kale waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah caruurtiisa oo fanka ku jira kuwaas oo ina dhowrkii sano ugu dambeeyay fanka horumar badan ka sameeyay oo ayna aan wax ka weydiin doono xaaladda aabo iyo waliba wixii kale ku soo kordha
oo muuqaaladana dambe ayaan kusoo qaadan doonaa wax walba oo ku saabsan xaaladda Cumar Shooli iyo wixii kale kusoo kordhay fanaaniinta kale ee waaweyn ee dalka dib ugu soo laabtay ee qarsoon ee aan la ogeyn ayaan soo bandhigi doonaa. hagaaga daawadayaal muuqaalkeeni maanta aad ka daawanaysan channelkeenana waa naga intaas xasuusnoo daawada inaad ka mid noqoto saaxiibada malaayiinta qof ee nagu xiran subscribe dhe gambaleelkaasna taabo si ay mar walba kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada xiisaha badan muuqaalkiina maanta oo Jimcaha daawadayaal waa naga inta